inaan soo dayno maxaabiista dhammaantood. Faysal wuxuu ku xidhan yahay gobolka Sool kuma xidhna Burco. Ha iska jajabinina albaabadiina iyo meheradihiina. Faysal idima soo socdo dhulkiina waxba iska jajabinina. Faysal ninkaasi intuu cirku idii jira ninka Faysal dambiye badan buu galay. Ninkaasi maxaabiis kale waa la isdhaafsan karaayo maxaabiista kale dablayaasha iyo waxa la isdhaafsanaya laakiin se Faysal suuq soo baxa waa adag tahay. arrimaha gudaha xukuumad ahaan waxaan isla waafaqnay in ay xukuumaddu waafaqdo go'aamadii lagu soo afjaray wixii ka dhacay Burco. waxaan amray in la sii daayo dhammaan dadkii la xidhay waxaana xukuumaddu u wakiilatay fulinta qodobadii ay isla qaateen guddiga nabadgelyada gobolka iyo odayaashu wafdiga xukuumadda ee Burco hadda ku sugan. shacbiga karaamada iyo sharafta badan ee reer Somaliland maanta hadalkaygani wuxuu ku wajahan yahay dadka gobonimada iyo sharafta badan ee xariirta ah ee reer Burco. maanta idinla hadli maayo inaan madaxweynihii qaranka oo keliya ahay oo baroordiiqda shacbigiisa kala qayb qaadanaya. waxaan idinla hadlayaa inaan ahay aabe ka murugaysan geerida iyo khasaaraha ku dhacay qarankiisa. waxaan ahay muwaadin ka damqanaya wixii ka dhacay iyo xanuunkii ka dhashay Burco shalayto. waxay naga geeriyooday 2 xubnood oo ka mid ah shacbiga Somaliland oo ay ahayd inaanay inaga bixin hase yeeshee qofna saacadiisa uu dhimanayo cid baajin mayso. waxay naga dhaawacmay tiro fara badan oo shacbiga ah ciidamada booliska iyo ciidamada qaranka. waxaan la qaybsanaynaa tiiraanyada iyo wixii ka dhacay Burco. waxaan u sheegayaa shacbiga Somaliland in wixii ka dhacay halkaas xukuumaddu ay baadhis ku samayn doonto iyadoo aan cidna gaar loogu jeedin ciddii ay ku caddaato inay ku lahaayeen lug kicintii dadweynaha iyo wixii ka dhacay Burco khasaare waxaa la horkeeni doonaa cadaaladda. ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu ku yidhi qur-aankiisa isagoo inoo digaya ka digtoonaada warka sharwaduhu idiin keeno aydaan ku camal falin si aydaan hadhow isu qabamaynin. waxaan shacbiga reer Somaliland u sheegayaa iyo shacbiga reer Burcaba in dadka lagu kiciyey war beena oo aan jirin. taasina waxaynu ka baranaynaa inaynu ka digtoonaano wixii hadda ka dambeeya inaynu beenta iyo wararka aan sugnayn ka fogaano si wixii maanta ka dhacay Burco aanay mar dambe inoogu soo noqon. waxaan ilaahay uga barayaa dadka inaga dhaawacmayna inuu u boogadhayo oo caafimaad degdega siiyo. reer Burco waxaan ugu baaqayaa inay ilaashadaan midnimadooda wadajirkooda walaalnimadooda iyo isku duubnaantooda si aanay uga hadhin shacbiga Somaliland ee maanta u hayaamay waxqabadka iyo horumarka. waxaan ugu baaqayaa inay nabadda ilaashadaan inay midnimada ilaashadaan. waxaan u mahadnaqayaa guddiga nabadgelyada gobolka iyo odayaasha iyo waxgaradka Burco ee xalayto soo afjaray wixii ka dhacay Burco. xukuumad ahaan waxaanu u diray xalay shaqadii dhexe annagoo siinayna ahamiyadda ay leedahay arrintani ka dhacday Burco. wafdi ballaadhan oo xukuumadda ka socda oo hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha. xukuumad ahaan waxaan isla waafaqnay in ay xukuumaddu waafaqdo go'aamadii lagu soo afjaray wixii ka dhacay Burco. waxaan amray in la sii daayo dhammaan dadkii la xidhay waxaana xukuumaddu u wakiilatay fulinta qodobadii ay isla qaateen guddiga nabadgelyada gobolka iyo odayaashu wafdiga xukuumadda ee Burco hadda ku sugan. waxaan ilaahay ka barayaa hawshaasi
inay si nabada inoogu soo afjaranto. waxaanu ogsoonahay duruufta ay ku nool yihiin qoysaska saraakiisha inaga xidhan ee maxaabiista ah. xilka koowaad baanu iska saaray inaan soo dayno maxaabiista dhammaantood. in waanu ku guulaysano waa la socota. inta kalena waxaa naga go-an waanu wadadeediina haynaa. tani markii shalay banaanbixii weynaa ee rabshadaha watay uu ka dhacay Burco, waxaa soo baxaya baaqyo kala duwan, hadallo tiro badan baa soo baxayay. ugu dambeyn Cabdiraxmaan Ciro madaxweynaha Somaliland baa hadlay isagoo markii uu ka tacsiiyay wixii meesha ka dhacay. laakiin ilaa hadda tabashadii bulshada wixii ay tabanayeen ee ahaa maxaabiista ka xirxiran in la soo daayo inaysan dhicin. bulshadana shalay wadada u mareen baa wada khaldan mataqaanaya ahayd oo waa ka hadlay. tii marka waxaa moodaa xukuumadda meel fiican ba in loo marayba. haddii shardi shalay ay ka dhigi lahaayeen maxaabiistaas nagaga xiran laascaanood ha la soo daayo, in la soo daaya rabnaa, wallaahi maanta go-aanka meel laga maro waa la waayi lahaa. laakiin waxaa lagu mudaharaaday maxaabiistan xiran ee la sii daynayaan maqalnay lama sii dayn karo. taasay u mareen. marka buur madow xalay iyo hanjabay, kuwa ka horreeya hanjabay, howlo badan baa jiray. horta meesha shalay dhimasha ka dhacday saan horey ba idinku sheegay. dhaawac baa ka dhacay tiro badan. hanti yaa ku burburtay. waxaasi oo dhan marka waxay ka imaatay, waxaa dhici karta in qof intuu fadhiistay meel oo kafay intuu cabay inay kasoo fushay uu soo qoray ama kasoo hadlay arrinta ah maxaabiis baa la sii daynaya. oo hadday xukuumadda maaganeed oo uu xogta u helay waa gooni. laakiin haddaysan maaganeen waxba ka jirin oo hadalka asaga iska abuurtay waa gacan ku dhigli. maanta dadkii dhintay isaga ka mas-uula. wixii burburay hanti, wixii dhaawacmay kulli korkiisa noqonaysaa. asagaan ilaah kala xisaabtan. Somaliland waxay sheegtaan inay yihiin qaran. muddo dheer way jireen. dadkan waxaa lala dhacayaa xabad nool nool. miyaa la waayay? xitaa jaariidaha dibadda ha noqotee hadday kuwii xukuumaddu wax gadan waayeen inay gataan dhowr gaari oo kuwa mataqaanaa biyaha kulul sayra iyo rasaastan mataqaanay dadka ka ilmeysiisa ee lagu tuurayo teegaaska in mataqaanay ay soo iibsadaan. dowladda saaxiibo la yihiin may ka soo qaataan. أول حلقي ومسوي أنا وحنا لأن كان وانين دكتاتور وانين ميليتري يكون حينين. لكن عبد الرحمن وحلا بهنا إن كو وقبل الله وحياة ودن رفشة ما كده عن واحد ذاك اللي جوه تجرها صند ذاك الميسيس بعتم بجارسينيس قفعي واسكسر عنيا ما نديليسو مدن كلا ما تغنى بيها كل وحكمت دويان وقف ما دماني. لكن ما كانت بيرك كي جلس الرصاص نول دي وقرن كرتا waxa ma taqaan qofkaas oo la kulmi marka arintaas in idan la waajaho oo meel iska saaro way fiican tahay. marka Cabdiraxmaan Ciro howlo badan buu ka hadlay, wafdi ballaaran oo ay direen ma taqaan ayuu ka hadlayay, howlo way tira badnaayeen. marka insha Allah xogaha insha Allah kii ma dhankaas waa soo ka soo hadlayna muqaalka la wadaaga saaxiibadii.